بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بأخيارتها هوذا نغلا سعوتاي كسو دوادا داوديال وربحنا إنو مركلا وهدلينا وراركي ودنبيي دغالada ka soconaya xadka dawladda deegaanka Soomaalida ee dalkaas Itoobiya iyo sidoo kale xadka dawladda federaalka ee Soomaaliya daawadayaal halkan waxaynu idin kula wadaagaynaa sida aynu sheegnayba wararkii u dambeeyay iyada oo ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida ay sheegeen in ay dileen 170 ka tirsan ciidamada al-shabaab ee maalinnimadii shalayta weerarka ku soo qaaday degmada Aato ee gobolka Bakool sidoo kale wararkii u dambeeyay iyadana gobolka Afdheer ayaad maqli doontaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa isaguna khudbad ka jeediyay kulanka baarlamaanka deegaanka Soomaalida waxa uu uga hadlay inta ugu badan dagaalka al-shabaab ay ku soo qaaday deegaanka Soomaalida taariikhdu waa 30 bisha 7 2022 waana habeenimo axad ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo haddii ugu horreyn baynu ku bilowno iyada oo xiisad iyo colaado ay ka bilowdeen xadka dawladda deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya ayaa maalinnimadii shalayto dagaal aad u khadhaadh waxa ay kooxda al-shabaab ay ku qaaday fadhiisimo ilaa iyo 3 iyo 4 ka koobna oo ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida liyu booliska ay ku lahaayeen degmada Aato oo ka tirsan gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya balse ku taala meel aad ugu dhow xuduudka deegaanka Soomaalida iyo gobolkaasi Bakool waxa ilaa iyo hadda isa soo taraya khasaaraha ka dhashay dagaalka ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida iyo ururka al-shabaab ee deegaanka Aato ee gobolkaasi Bakool labada dhinac waxa uu mid walba sheegay in guul weyn uu ka gaaray dagaalkaasi ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ay dileen 170 ka tirsan ururka al-shabaab ayna ku dileen Aato kuwaasi oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab sida aad wararkeennii horeba ku maqlayseen ilaa iyo 3 horjoogo ayaa ciidamada liyu booliska iyo dawladda Itoobiya ay sheegeen madaxa sirdoonka ugu sarreeya dalka Itoobiya ayaa sheegay in la dilay 3 sargaal oo sarsare oo ka tirsan al-shabaab isla markaasina lagu dilay degmada Aato agagaarkeeda dagaalo iyo duqeymo xoogan oo halkaasi ka dhashay al-shabaab waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dawladda Itoobiya ay si rasmi ah dagaalka uga qayb qaateen dadka qaar ayaana u badinaya haddii ay suurtagal tahay in saraakiisha sarsare al-shabaab ay dhinteen in duqeymahaasi ay ku dhiman karaan waxaa la xaqiijinayaa sida kale ama la ogyahay in dagaalka tooska ayna soo galaynin saraakiisha sarsare ee kooxda laakiin iyagoo markaasi xagga dambe ku dhuumanaya ama xagga dambe jooga haddii lagu bartilmaameedsado baabuurta iyo ciidamada la jooga oo saas lagu duqeeyo waa suurtagal in sidaasi lagu dilo waxaa kaloo iyadana suurtagal noqon karta in lagu dili karo ciidamada liyu booliska iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qayb ka ahaa dagaalka ayaa baacsaday kooxda al-shabaab waxayna dib ula galeen duurka iscayrsadka dambana waa suurtagal in ayadana si uun dagaalka loo dardari karo oo meel ay joogeen loo gaari karo si kastaba dawladda Itoobiya waxay sheegtay inay dishay saddexdaasi al-shabaabsa waxa ay sheegeen in Abu Ubayda uusan dhimanin kuwa kalena ilaa iyo hadda intaan u arkay ma aysan ka hadlin laakiin dhankooda al-shabaab ayaa baraha bulshada ee ay isticmaalaan waxa ay ku faafiyeen in dagaalka ka dhacay xadka ay guulo badan ka gaadheen ayna ku dileen 150 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliska waa sida iyagu ay sheegeen sidoo kalena ay ku qabsadeen maxaabiis iyo saanad ciidan ayaga ayaa warkaasi sheegtay dagaalka ayaa ah mid aad u culus waxaana wararka ay sheegayaan in al-shabaab ay isticmaalayaan gaadiid dagaal oo horay ay uga qabsadeen ciidamada AMISOM waxaana sidoo kale dagaalka ka qayb galay diyaaradaha dagaalka Itoobiya sida ay kooxda al-shabaab sheegtay balse ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya dagaalka u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidanka liyu booliska oo kaashanaya kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa galay isbuucii labaad waxaana dhowr jeer uu ka dhacay xadka Hiiraan iyo Bakool ay la wadaagaan deegaanka Soomaalida dawladda Itoobiya waxa ay horay u sheegtay in ay soo gabagabaysay dagaalkii ka dhacay gudaha dalkaasi kadib markii al-shabaab ay galeen gobolka Afdheer waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee al-shabaab ay galaan kana dhex dagaalamaan gobolka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya ayaa maalinnimadii shalayto sheegtay in dagaalka ay ku dileen 3 sargaal oo sarsare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab waxaana magacyadooda ay ku kala sheegeen Fuaad Shangoole Cabdicasiis Abu Muscab iyo sidoo kale Abu Ubayda Nuur Ciise hase yeeshee kadib warkaasi waxaa ka hadlay Abu Muscab nin ay ku sheegtay kooxda al-shabaab oo isaguna guula ka sheegtay waxa uuna sheegay in uu nool yahay laakiin ma uusan ka hadlin saraakiisha kale
ay dowladda Itoobiya sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay sidoo kale anagu ma cadeyn karno shaqsiga hadlay ee codkiisa kooxda al-shabaab ay baahisay in uu ninkaasi Abu Cubaydaha uu yahay iyo in uu qof kale yahay dhinaca kale gobolka Afdheer iyadana howlgallo ballaaran ayay ka wadaan ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida waxa ayna sheegeen in ay baacsanayaan kooxo firxada oo gobolkaasi ku sugan ilaa iyo shalay 3-4 jeer ayaa la sheegay in ay ciidamada liyu boolisku weerareen goobo la sheegay in ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan al-shabaab howlgallo ballaaran ayaa dhinacaasi ka soconaya dad aynu la hadalay ayaa noo sheegay inay suurtagal tahay in kooxo aan badnayn oo ka tirsan al-shabaab ay u gudbeen dhinaca Oromiya oo gobolka Baale Bari oo dhulka Oromadu ay degto ahna dhul buuraley ay dhulkaasi galeen ay ku sugan tahay jabhadda xoreynta Oromiya laakiin inaga ma cadeyn karno in ay tallaabeen kooxo ka tirsan al-shabaab laakiin al-shabaab ayaa si weyn uga baaraandegtay qaabkii ay ugu gurileyn lahayd gobolka Afdheer oo ilaa iyo hadda laga bixinayo maalin walbana dadka reer miyiga ay soo qabtaan shakhsiyaad la sheegay in ay firxad yihiin iyaga oo ku wargeliya laamaha ammaanka waxaana ay dawladdu xoogga saaraysaa dhinaca gobolka Afdheer al-shabaab lafteeda dadku waxay sheegayaan in ay mashquulin hayso ciidamada liyu booliska iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay meelo kale dagaal ka furayso laakiin dagaalka rasmiga ah iyo qorshaha ay wadato waa dhinaca gobolka Afdheer oo ay doonayso in ay ka tallaabaan dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya al-shabaab in ay doonayso in ay Itoobiya ka dhex samayso kooxo markaasi magaca islaamiyiinta wato oo ka dhex dagaalama isla markaasina Oromada muslimiinta ay doonayaan in ay dhex degaan iyo meelaha iska gaaraan deegaanka Soomaalida ayna dad sidaas ku kasbadaan waxaana jira sida la sheegay ugxamo ama seel waxa loo yaqaano oo meelaha qaarkood ay ku abuurteen kuwaasi oo la shaqeynaya jabhadda xoreynta Oromiya oo dawladda federaalka Itoobiya ay u taqaano argagixiso ugu diiwaan gashan ayaa la sheegaya in ay si ay iskaashi u yihiin iyaga oo ku wada socda qorshaha cadawga ama halku dhaga cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka si kastaba daawadayaal xaaladdu ilaa iyo hadda ma aysan caga dhiganin ciidamada liyu booliska waxay wacad ku mareen in ay soo dabarjari doonaan kooxaha al-shabaabka ee gudaha deegaanka Soomaalida galay iyo waliba kuwa ku sugan gobolka Bakool iyo xadka ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya isla markaasina ay ku jiraan baacsigii ugu dambeeyay shalayna ay jab aad xoogan gaarsiiyeen baabuur badan iyo agab militarina laga gubay oo qalabkii ay al-shabaab ugu tala gashay iyo hubka ay ugu tala gashay in Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ay kaga dagaalanto oo dhan ayay sheegeen in ay gubeen ayna burburiyeen isla markaasina qaybihii u dambeeyay oo firxad ilaa iyo hadda ay sii cayrsanayaan amsnaanta Fuaad Shangoole oo Itoobiya ay sheegtay in ay dishay dad badan ayaa shaki ka qaba in uu wax ka jiro dulistaasi halka dadka qaarkoodna ay leeyihiin waxa laga yaabaa in haddii uusan dhimanin uusan doonaynin in uu hadlo maadaama oo la og yahay asagu inuu ku sugan yahay gobolka Bakool oo maalmihii u dambeeyay uu ku sugnaa laguna arkay uu diidayo in uu hadlo si aan hadalka loogu soo raacin oo haddii warbaahinta uu la hadlo waxa suurtagal ah GPS-ka telefoonka iyo in wax lagu arki karo meesha uu joogo amaba haddii uu hadlo yaani weeraro badan oo inta ka sii badan la qaadi karo sidaas darteed haddii uusan dhimanin oo si ka duwan ay tahay sida dawladda Itoobiya ay sheegtay ma uu hadli karo hadda inuu nool yahay ma cadeyn karo maadaama oo uu ku sugan yahay gobolkaasi si uusan bartilmaameed u noqonin xoog badanna aan loo saarin deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Bakool dhinaca kale haddii intaas aynu kaga gudubno madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo baarlamaanka deegaanka maanta hortagay ayaa ka hadlay arrimo badan oo muhiim ah isla markaasina ku saabsan deegaanka Soomaalida iyo dagaalka kooxda al-shabaab ay deegaanka ku soo qaaday bal aynu wada daawano qayb kamid khudbadda u jeediyay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar lana koobo wala go'aansaday qorshaha miisaaniyadda aan soo dhigi doono hadda iyo ka muuqan doonta hadii la yiraahdo ahmiyadda ku walana in la siiyo ka jawaab Sheekh Xasan arrimaha dayactirka biyaha oo aan aaminsanahay dhaqso looga midhaliyay tahay ku noqon maayo tababarada iyo daraasaadku maxay natiijo keeneen دراسات اللي قسم يوبهي يقلب سوى دراسات هورلي اللي قسم يو ما ديسمس كرين كرنون اوت رايت مورن كرنون وحبا ما كينا فايدة لكن إن هوس لا واسع وأنكر عسنا هاي اللي وانك تبرهين هنا دراسات كن إن مرة البق دبلوقي ما يقول لي محاس أوكر حديث كم محاس لقى تبرهين ويحي ما كبحي أود نوع اسمه سوكر دي إن اللي يدهوا الله يقول يلاقوا منتهي وطلع مقادنا هنا وحيوبها هنتهي إن تأسمر صار لقاته الحساب تنك
qiimaynta gobolada xoogga la saaray laakiin si guud isla xisaabtanku inuu kor u kaco oo maaragtay la waxeeyo waa muhiim hanti dhowrka reportiga keeni doonaan waxaa ka muuqan doonaa in isla xisaabtankii wax badan kasoo kordheen hanti dhowrka reportiga ay keeni doonaan oo dad badan loo xidho musuq hata habeen la yidhaha kuwa hoose iyo dakhliga unbaa la musuqa dakhliga mashaariicdan baa ugu badan musuqa anyway lacagta ugu badan la musuqi karaa ama mashaariicdaas iyo waxa ama waa dakhligu iyo financial misappropriation kale oo jirana way jiraan oo iyaduna inspection reportiga fiican oo shacabka la wadaagay marka talaabaqaadkeeda iyo sixiddeeda hala sameeyo waa sax gobolada arrinteeda iyadana haddii waxay khaldan yihiin qaabka loo qiimeeyo iyadana in la saxo weeyaan procedureska oo cidda ka sarreysa ay qiimayso oo iyadana la isku dayin waa tala saxa waa la qaadanayaa gobolada kule annaga baa qiimayn jira hadda ka hor waxaan u malaynaya guddi ufurinta gobolada la jeedaa in gobolkii lagu daayo maha la leeyahay waa sax heer deegaan cidi inay dhex fadhido waa ila ogaato waa ilo quman tahay si dee heshiis iyo isku xidhnaasho uun wax ku salaysan uun meesha u iman oo meesha waa arrin fiican weeyaan haweenka iyo ka qaybgalka haweenka kor loo qaado boqolkiiba boqol waa arrin aan taageersannahay si taa loo hirgeliyo haweenka baarlamaanku arrinta iyagu hormuud ha ka noqdaan waa mar walba ha soo qaadaan ha soo jeediyaan magacaabinada lasoo dhigayna ha horboodaan ha taageeraan arrintaas maarata mustaqbalka wasiirada iyo ku-xigeenada iyo wixii la keenayo haweenku hormuud ha ka noqdaan waan ku raacsannahay heer deegaan bilow fiican baa jira heer gobol xeerka ma jiraan heer degmana kaba sii dara marka in labada jaranjarana si cad toos hadda si dhaba in loo galo waan samaynaynaa doorashadii ka hor waad ogtihiin inaan odhan jirnay haweenka waan heer deegaan waan samaynayna waan ka dhabaynay kaabini ahaan iyo ku-xigeenada weli wax badan laga hagaajiyo u baahan taas marka waan qaadanay insha allah waa la arki doonaa isbeddelka dhanka al-shabaab la dagaalanku iyo kaalinta dumarka runtii aad iyo aad uma soo koobi aad iyo aad bay uga qayb qaateen istiritaankii waxay iyagoo sicir barar uu jiro iyadoo baahida ay jirto wixii ay samaynayeen cunto wixii budku samaynayeen waxay yani wax la malayn karo runtii ma wax annagaba cajiib nagu noqday buu ahaa hargeyliya inta udhaxaysa godi markaan marayna waxaa soo baxay haween annaga oo mas-uuliyiinta meesha maraya ah iyagoo yaacaya biyahan highlandka iyo kooke iyo waad garan kartaa miyiga marka la joogo biyaha highlandka iyo honkar iyo qiimaha ay leeyihiin waxay soo siisteen noo keenay annaga meeshii marayna oo yidhi qaatoon macnaha ciidankan saa waddada ugu taagnaa baa jiray wax la soo koobi kara maaha kolley waxaan ii qorshaysnaa labada maalmood soo socota ama intaan tii ka hor inaan shir weyn oo haweenka u qabano halkan ugu qabano oo mahadnaq gaara oo kaalintaa ka ciyaarayna inaan samayno yaa noo qorshaysnayd waxyaaloo aan ka tegay hadday jiraan waad iga raali ahaanaysaan laakiin dhextaal arrimaha baa jiray oo lasoo tuurtuuray oo sidii arrintii garlowgiba ceelka oo kale waa in hoos loo eego maamulkii gobolkuna halkan way joogaan marka ay taasoo kale heer gobolna ku eegaan ceelka waa muhiim laakiin jidka lacagta ku baxaysana waa muhiim isaguna iyo sababta halkaa loo mariyey marka haddii dee ay noqoto in jidku ka muhiimsan yahay halkaa la mariyo aagaas maadaama biyo leeyahay ceelkan waa ceel xili hore la qodo ahaabee waa un ra'yi macnaha ku kala laga agaro qodo shirkadda lefsa ha qodo waa la odhan karaa macnaha meel ka dhow marka in waxay u baahan tahay uun xilligana in la eego xilli abaaray jiraan oo dadkii biyalaan yihiin intay ceelkii joojiyeen iyadana waa la odhan karaa xilligan abaar ma jirta xilligan roobka oo kale aynu samayno marka xogteedii macluumaadkeeda in la helo ayaa loo baahan yahay lakiin gobolka arrintaa ha qaato annana xabiiska madaxweynuhu dabageli hadday dhibaata jirto waa la sixi nidaamka qabiilka iyo arrimaha wax lagu hayo nidaam qabiil iyo waxay kale yihiin matalaad nidaamka matalaadda lagama bixi karo inaan waaqici noqona xaqiiqda isu sheegnaa muhiima dadyoga inta badan kusoo celiyaa nidaamka qabiilka deegaanka laga guuro deegaanka soomaalida unbay arrintaa ka codsadaan nidaamka waxay leeyihiin kuwa jirto puntland iyo jubbaland iyo somaliland iyo kuwa ay kama hadlaan markay ka hadlayaan iyo federaalka soomaaliya hadda dowladda laga dhisay kama hadlaan raalli bay ka yihiin taa qolyada ku celisa arrintaa marka qabiil waxa la yidhaha maaha waxaan ka hadlaynaa constituency qaab nololeedka dadkeenu waxa weeye waa qaab dad isku urursan meel ay degan yihiin constituencyga tuulo jooga dad isku family ahoo protection iyo ammaan wada raadsaday oo meel ku ururay weeyaan hab nololeedkeeni ha laga guuro meesha ma taalo degmooyinkeena intay u yaalaan degmo walba dad baa ku urursan marka representation iyo inclusivity in dadku ay meelaha ka soo jeedaan ka wada muuqaan baarlamaankan caawa maanta haddii uu ka koobnaan lahaa 5 gobol oo 6 gobol ka maqan yihiin dee baarlamaan deegaan soomaaliyeed yaa matalo wey lama yidhaahdeen marka waa inaga maskaxdeena adiga qofka ama haddaad u qabiili tahay wax kasta qabiil baad ku arkaysaa
laftigeed marka qaybahan waa sixidda aragtida laftiga aan qabno basax ku hayno qaybaha waa sixidda dhaqanka mas'uuliyiinta dhaqanka qofka mas'uulkiina qaabku u dhaqmayo haddii isaguna uu qabilno taana cid ka badbaadaysa ma jirto qof walba pressure qabiil baa saaran qof walba annaga ku dooranabay wada jirtaa iyagaa doortay marka political realismka qofkani meeshuu ka soo jeedo inuu qanciyo iyo professional muxuu ahaa responsibilityga in la soo afjeen u baahan tahay oo qofku uu damiirkiisa ku eego wixii uu damiirka ka soo jeedo uga doodi karaan ha uga doodo wixii dee khalad ay tahayna ha ka soxo dadka inay u dhexeeyana ha ku dadaalo marka waa u baahan xagga un baa laga eegayaa laakiin shaqada qofka meel la geenaya qof ku habboon ahaan noqdoodu iyadoo 100% waa geedka waa ma garanaysaa waa biyo kama dhibcaan qofka meel la geenaya wuxuu doonaya ka dhabayaan oo nabad dabagala oo taawuna agoonta iyo isbitaal ciidan iyo in lagu sameeyo ay noqon doonto laakiin diaspora oo kale lacag badan baa taalo gabara marka dadkii qurba joogtaana iyagana inaan hawshan xilligan inta sidan tahay ka qayb dagaalkan si shacab aan u galaalay si shacab aan u galo maadaama la yiri inaan taana qaadano oo ka shaqeyno waa qorshayaasha hadda weliba xilli qorshe la diyaariyay maana gaarin baarinta shabaab dibdemiskii baa lagu jiraa wadankay soo weerareen magaalooyin bay soo galeen hal difaac in hal daran baa la yiri laakiin wareegii labaad ee aad dagaalkan aad u dheeraado xoog kale ay soo galaan deegaankani sidoo isu difaacaya oo aan arintaas ka qabanayna qorshaheedii hadda bay bilow tahay inahaas ku soo koobaya jawaabihii su'aalihii la soo jeediyay aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh